ka aaminsan yihiin adiga inaad ka ganacsato jirkaaga amaba hoteelada aad ugu tagto ragga si aad lacag ugu soo qaadato. babaji labadan bir babaji ayaa baraha bulshada qabsaday. waa laga yaabaa marka ay maqasho babaji inay kugu soo dhacday sababtoo baraha bulshada qabsaday. wareysi oo maal dhaxaas bixiyay ayaa waxa kusoo falceliyay dadka caanka ah baraha bulshada. Assalaamu calaykum daawadayaal, asxaabta soo dhawaada muuqaalkeena maanta waxa uu hadli doonaa muuqaal labadan bir baraha bulshada qabsaday. waa babaji oo wareysi ka qaaday gabadhan ugu magacaabo Queen Qaban. dad badan ayaa wuxuu ugu soo falcelinay siyaabo kala duwan, balse hadda waxaan ku tusi doonaa Sheekh Maxamed Ibrahim oo si cajiib leh ugu soo falceliyay wareysiga dhexmaray babaji iyo Queen Qaban. balse daawada inta muuqaalkan ku soo daan waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka la gareyso aana shiishay gareyso si dad badan u gaaro. laagta muuqaalka waxay naga caawinaysaa inuu muuqaalku meel badan gaaro. babaji ayaa wareysi wuxuu ka qaaday gabadhan ugu magacaabo Queen Qaban oo dad badan aad u wada garanayaan. Queen Qaban waxay ka ganacsataa si dadku u yaqaanaan jirkeeda, waxaana u isticmaashaa app la dhaho OnlyFans. wareysi oo dad badan ka xanaaqeen oo u fahmay in babaji uu faaninayo, in babaji xayeysiin u suubinayo gabadhan ugu magacaabo Queen Qaban ayaa waxaa ka soo hadlay dad badan oo caanka ah baraha bulshada. waxaa hadda u dambeeyay sheekh lagu magacaabo Sheekh Maxamed Ibrahim oo u soo qaatay sheekada yaab badan. daawada daawo sheekada yaab kale oo u soo qaatay Sheekh Maxamed Ibrahim. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن ير كرتون كان بل أنا إذن شذو وأنا فسرها بإذن الله تعالى. عدك وان كحري ودوعو إسكا سعوتي مركز ساوى حكوس ودعي دقحي وحكا إستاغي ديبكا قبال وكبح سنواي مركز دركيسا هذا دقح وعلوسي أوي وحي إسكو دايسا مركز دوعا داس إني كبح ستو لكن معلم بمالي تكدم بيسا بين بهمين كدم بيا صدر كيسان وإسبدلا يا أيضا مركز habay yaraatee wax taaga aanu ahayn kana baxsan la meeshii. markaas ay aragtay geed meesha yaala ama alwaax, markaas waxay iska jartay dibkii ama senti. markay iska jartay xanuun badan kadib adiga almuhim yani waxa arkay ayadoo socota dawaca kale seen leh ama dib leh ama qof walba soo u yaqaan. waxa dhacday marka dawacadii waxay tiri maxaa kugu dhacay? waxay tiri soo ma jeedin culeyskiisa waa ay gadgadoomaysa yani culeyskii aan iska jaray waa raaxay waxaan ku jiraa inaan biiba camal. war waxay tiri hadday saata ana iga jar. markaasay ka dhamaysay inay ka jarto. markay ka jartay xanuun iyo rafaad iyo dhibaato markaasay tiri maxaa beenta igu sheegtay? markaasay leedahay war dhageyso waxaan beenta kugu sheegay xaaladaas ay ugu dhacday qisada ugu warantay. kadib waxay tiri maxaa sameynaynaa? tii waxay tiri ana akhbaar haya tii macnaha arrintan wadatay waan u sheegaynaa tiri waa kaas waan fududaanaan leenahay kada dadkan ka dhaadhicinaynaa. almuhim magaaladii ay la galeen hadalkaasi waa kuwaas ka wada jaraya dabacooyinkii dibka. sheekada aan sii wada marka muhiim ma ahan yani waa iska sheeko laakiin waxaa looga qaataa ujeedo ayaa laga leeyahay. markaas magaaladii markay galeen ayagoo dhowr ah marka oo dibkadana dabcan seen lahayn dhammaantooda ayaa waxaa dhacday si ugu qancinayeen inay magaaladii dhamar noqotay sidaas oo kale. markaas halkii ama labadii diiday aqli inay leeyihiin iska dhigo kor yimaada hadalkooda inay ceebayaan ilaahan soo ma jeedaan masaakiin aqli xataa ma lahan nolosha si uga noolaadaan ma lahan iyo wixii la midka. marka moralka ama ujeedada ama macnaha ay ku fadhiso arrintan waxay tahay marka wax laga dhigo wax caadi ah normal ah laga dhigo waxay noqdaan normal. waxaa xaqiiqatan aad iyo aad u socda maanta iyo shalay inta badan dadkana ii soo diraan arkayaa arrintan akhlaaq xumada ah aadka u liidata. nin weyn leeyahay caruur uu leeyahay kuna nool dabcan waddankeena ayaa wuxuu sameynayaa in dabacadii hadda aad arkayseen oo kale dhaqanka foosh xun ama xumaanta inuu caadi ka dhigo normal wax caadi ah dadka oo dhan ay si caadi ah uga hadli karaan. walaalkaasi babaji subxaanallah يعني إن بدن وان مخلي حيالها نسميان أما فيلمات ترجمان يوحي لمدك
qofka marka uu bay-ooyinka noocaas oo kale ku dhex jiro hadallada oo maqlaayo dhagihiisa ku dhacaaya inta badan waxay u badan fawaaxishtaasi la qabsiga oo qofka la qabsanaayo maadaama waxaas uu turjumayo macnaha ayaa waxaa dhacaysa waa maxay wuxuu leeyahay inuu arag normal adigu ku ceebay adigu xumaan u arag asra caadi la tahay maxaa hadda habeenii maalin loo turjumaa caadi u arkaa sidaa darteed waxaan leeyahay inta walaalkaasi tiri walaalo waad khaldan tahay oo markaa u nasiixeeyey way saxan yihiin asagana waxaan doonayaa videogan in dabcan iyo kuwii la midka ahaa ee uu arkay inuu arrimaha noocan oo kale ah aad aga fiirsado dhaqanka Soomaaliyeed haba yaraatee kuma jiro in arrimaha noocan oo kale ah akhlaaqda aadka u liidata ee markaasi mujtamac dhan dhumin kara qof weyn inuu inta loo soo fariisto wixii caadi u jireen waxa ma dhaato ogowna Allah subhanahu wa ta'ala rasuulkiisa wuxuu leeyahay kullu ummati mu'aafan ummaddeedoo dhan waa la cafinaya dambigooda la dhaafaya dunuubtooda ilaahu ka dhaafaya illa wa ayo kuwa la jahra kuwa wixii intay sameeyaan xumaantii banaanka u soo dhiga tusadadka dhaha warkaale arka xumaantaasan sameeyay wixii la midka daawade maxaa ku kalifay in baabajiye oo horeys noocan ka qaada gabadhan wixii fikirkaada ilaayaada waxaan la wadaagi kartaa qaybta commentiga oo ku maashantaa daawashada video maanta halkaas noo eegaya ciao